bahda garsoorka shirkii sanadlaha ahaa isugu timiday maanta halhayskeedana ka dhigatay federaaleynta garsoorka. waxaan leeyahay waa idin bogaadinayaa waana idin hambalyaynayaa dadaalkiinana runtii dadaal muuqdo oo hadda taabagal ah waaye. waxaan rabaa intaas inaan ku daro arrimaha garsoorka in badanaa laga soo hadlay muhiimadda ay leedahayne marna nagama qaldanayn tabartuba meel soko oo meeshii aan rabnay aan gaarsiisnayn hanugu soo sintee. teramkii ka horreeyey oo aan dalka madaxweynaha ka noqday 2012 horaantii 2013 ayaan qabanay halkan hotelkan Jazeera ku qabanay shirweynihii garsoorka oo la isugu yimiday oo dal iyo dibad kaasi bahda garsoorka ma ahayne dadka Soomaaliyeed oo dhan ayuu ahaa oo dibadda iyo dalka gudihiisa iyo meel walba la isaga yimiday oo bal garsoorka la iska warsaday dalkan cadaaladiisa iyo garsoorkiisa sidee siyaasadiisa sidee loo hagaajiyaa talooyin wax ku tar ah wax ku ool ah ayaa maxaan ku yiraahdaa beriga meesha laga jeediyay. talooyinkii in badan oo kamid ah ma ayan fulin duruufo markaa dalka ka jiray iyo mugiga rabitaankeennu mar walba wuxuu ahaa garsoorka in garsoor la wada leeyahay dadka Soomaaliyeed taladooda iyo qiyamka ay leeyihiin lagu saleeyay inuu noqdo ayay ahayd. isla sanadkaas waxaa la diyaariyay xeerkii lagu dhisi lahaa adeega garsoorka bishii Juulaay 2014 golaha shacabka ayaa ansixiyay xeerkii iyadoo culays ka jiray dhinacyo siyaasadeed oo xilligaas taagnaa. hase yeeshee markii xeerkii ilaa hadda uu jiraa la ansixiyay adeega garsoorka in shakhsiyaadkii adeega garsoorka noqon lahaa ee dastuurka ku meel gaarka biriga uu tilmaamayay ay xukuumaddii soo barboos gareysay baarlamaanka waa mari waay golaha shacabka ayaa jira markaa aqalka sare ma jirin beriga waa mari weysay oo waa baarlamaanka uu soo celiyay asbaabo oo xoogaa aad iyo aad u dhib badnaayo farsamo oo caqabada ahayoon laga gudbi karin ayaa la soo dhibaatooyinka markaa naga jira Soomaaliya berigaana jiray welina meelaha qaarkood ku dambeey waxay tahay wax walba inay naga siyaasadaysan yihiin wax inay naga siyaasadeysnaan aanan u baahnayn in ay naga markay siyaasadda kore looga soo heshiiyo ama la iska fahmo in markay farsamo joogtay oo wixii in la nambariyo oo la kala waxay loo baahnay haddana kor loo celiyo oo meeshii siyaasadda iyo doodii siyaasadda la geliyo iyo dad yar oo xafiiltan is haysto iyo dhaqanka dee jiro soo jiray welina jiro oo ah beelaynta wixii in la beeleeyo ayadoo ay ahayd waxaan wax xirfad iyo aqoon iyo muxuu khabiir u baahan in la yiraahdo mar walba. dastuurkeenuna marar badan ku meel gaarkaana marar badan oo waxaasi uu xeerinayo gudiyada iyo siday u dhisan yihiin iyo qaabka fikirka ku jira markaad eegto. marka dhibaatooyinkaas ayaa hor yimid golihii adeega garsoorka ilaa berigaas ilaa maanta weli waa naga maqan yahay nooma sameysna. dib u eegista dastuurka hadda lagu jiro ayaa ay ku darsoontay qodobada dib loo eegayo oo laga hadlayo ayay ku jirtaa. farsamo ahaan federaaleynta waa laga hadlay wax badanaa marka hadda doodaha socdo 9 xubnood miyuu ahaanayaa ma ka badanayaa sidee noqonayaa oo ay u badan tahayna in laga badiyo si hore loogu socdo. waxaan rabnaa marka arinta federaaleynta garsoorka moodelo badan ayaa ka jira dunida oo nidaamka federaalka ah uu adeegsado. marka haddee wax walba ha jiraan in model kasta iyo nidaam kasta oo la dejiyeyna ummad unbaa baahideedii iyo duruufaheedii berigaa jira lagu saleeyey. maxaan ku rahdaa waxii ayado quraan oo soo degana ma ahayn meel kalena lagama keenin dad inta isku tagay tashaday oo yiri war maanta maxaana dhaqaa garsoor noocay aan u baahannahay amni noocay aan u baahannahay nidaam maxaan ku rahdaa dhaqaale nooca waxaas looga hadlay. sidaas ayaan anaguna ka mid noqonay dib ayaan u eegnay war maanta awoodeena dhaqaale marka la fiiriyo oo awoodeena maxaan ku rahdaa siyaasadeed marka la fiiriyo oo awoodeena maxaa ay dadkeena shacbiga ah iyo sida ay maanta xaaladoodu tahay la eego garsoorka ay ku qanci karaan ee aan fulin karno ilaan waa hadda laga hadlayay fulintii ayaa wax badan ay u dhicisoobeen waa ta la leeyahay midka aan fuli karnaa awoodiisa aan leenahay duruufeena
maanta marka la cabiro waa maxay dood oo dheer ayaa la galay waxaana la isla gartay nidaam garsoor oo federaaleysan oo maantana awoodeennu meesha ay joogto aan qiyaasna inaan fuli karno waa laga yaabaa kuwa kasii qurqurxan ama laga jeclaan lahaa inay jiraan laakiin xaqiiqadu ay tahay inaanan fuli karin awood dhaqaale aan ku fulina aanan heli karin maxaan ku yidhaahdaye awood aqooneed iyo khibrad aan ku fulina aanan heli karin duruufaha siyaasadeed ee dalka ka jira iyo wacyiga dadkeennu aanu saamaxaynin caqabadahaasoo dhan ayadoo la tixgelinayo ayaa nidaamka federaaleynta garsoorka aan qaadanay waa laga yaabaa marka lasoo bandhigo dadku inay su-aalo badan ka keenaan oo ay yidhahdaan warsay suurtagal ku tahay sida hadda uu tilmaamayey guddoomiyaha muxuu ahaay maxkamadda sare dalka in aan isku tagno kalsooni aan abuurno oo maxkamadda degmada joogtahay degmada fog ee maxaanku irahdaa dalka geeskaa jirtahay ay dacwad heer federaala inay qaadi karto haddii kale haddii aan dhahno maxkamaddii degmada ee heer dowlad goboleedna halkanay ku taallaa maxkamaddii degmada ee heer federaalna halkanay ku taallaa oo meesha intaan kasoo bilaabno aan meel walba laba maxkamadoodoo isbarbartaanno aan dhigno waa laga yaabaa mashaakilaad badan inay daaweynayso laakiin mashaakilaad kale oo iyagana ka abuurmayaa jiro oo kuwii aan soo tilmaamay ka mid a sidaas daraaddeed waajibka noo yaalahay wuxuu yahay siyaasiyiinta haddaan nahay mustawo kasta leh kalsooni abuurid dadka horta inay arkaan ay ku qancaan waxaana inay shaqaynayaan markay ku qancaan kadib waxa waaye dadku waa aqbalayaan waana ku soconayaan dadka soomaaliyeed duruufaha al-shabaab nagu hayay waa la sheegay waxaa ka mid ahay nidaamka garsoorka oo dadku ay ku kalsoonaa waayeen nidaamka garsoorka oo mid kale oo cabsi iyo fulin xaddhaaf oo maxaanku irahdaa qaanuun iyo shareeco ay ku salaysantahay aanay jirin barbar yaallo oo sharci duureedkii oo nin walba ninka ku xoog badan yahay inuu ka adag yahay ahay lagu dhaqayo wax badan baa isdugsaday maanta waxaan rabnaa dadkeenna inaan horta marka koowaad dhinaca amniga cabsida inaan ka qaadno inay cabsadaan oo ay maxaanku irahdaa baqaan oo dhinacyaha fifiiriyaan inaan ka qaadno taas mugaan ka qaadnana haddana dadku aanay iska daysnaanine xeendaabka xeerarka dhexdooda in ay xor ku yihiin laakiin xeerka meel ka baxsan qofna lagama ogolaa karo inuu xor ku noqdo laakiin xeerka dhexdiisa uu xor ku yahay maalan dhaqanka iska soo jireenka wax ka mid hay-adaha dowladda qaaraad maqlaysaa hay-addan waa madax bannaantaha in la yidhaah waa madax bannaantaha macnaheedu waa maxay shaqadeeday u madax bannaan tahay laakiin waa hay-ad dowladeed qaanuunka dowladnimada ee dalkaanu leeyahay kama madax bannaana shaqsina kama madax bannaana hay-adna kama madax bannaana laakiin shaqadeeda yowmiyada ah oo ay fulinayso inaan lagu amrin lagu faragelin maxaanku irahdaa madaxda sare aanay ku riixin maxaanku irahdaa nooc kastoy tahay waxa ay wax lamida waaye inaan muxuu ahay madaxdu aanay kaysaska maxkamadaha yaalla aanay telefon inta soo diraan ha la sii daayey ha laga dhacay aan la dhihin waxaa soo haray wasiirku hadda case halkan laga dhawaajiyey oo maxaanku irahdaay taliyaheena qaybta guudna uu sheegay sida uu wasiirka hadda halkan ka dhawaajiyo waxaas waa soo jiri jireen mana la inkiraayo maantana weli waa jiraan waa xaqiiqo laakiin waxaan rabnaa taliyaha qaybta iyo qaybaha kale ee booliiska iyo waxa weli sharciyaa jiro ciidanka qalabka sida maxkamaday leeyihiin meel u taagan oo xeerarkeeda iyo nidaamkooda iyo disibliinkooda iyo wuxuu ilaalisa sarkaalka waxaa samaynayaa waa in inta lasoo dacweeyo maxkamadda ciidamada qalabka sida la geeyo haddii maxkamaddu ay la safatay raalli ka noqoto markaas waa mushkilo kale oo weyn oo markaa u baahan xal oo meel kale iyo mustawo kale in laga raadiyo u baahan laakiin haddii wiil yaroo laba xidig laa meel istaago afar askari wato uu yidhaahdo maya waraa baxa booliiska uu soo yiraa booliiska hadday iska soo noqdaan yidhaa hadda meesha xabadaha ka dhacayse xabado inay ka dhacdo ma rabne waa iska soo noqonay ay yidhaahdaan macquul ma aha waa in mustawo kale la qaadaa xidiglahan laba xidiglahan korneelkan janankan ama military ama booliisa ama maxaanku irahdaa nabad sugidda ama maxaanku irahdaa ciidanka asluubta ah ee ciidankii dowladda iyo qalabkii dowladda inta soo qaatay inuu ku hor istaaga rabo sharcigii dowladda iyo dalka hadda aniga sabab looga caajiso ama muxuu ahay loo waxeeyo ma aqaan si loo fuliyo shareecada dalka iyo qawaaniinta waa in loo dhintaa maalin walba maxkamadda daday dil inta ku xukunta tiirka la geeya la dilaa soo maaha muxuu halleeyey waa tabar darnaay miya kaasi kan hadda oo la sheegayo oo xukunkii maxkamadda hortaagan yahay laleeyahay muxuu ka duwan yahay kaa
qoryo haysta daraaddeeda ma dhici karto wax dhacaya maaha kaysaska saas oo booliiska ka hor yimaada booliisku waa ciddii maxkamadaha xeer ilaalintu iyo maxkamaddu gacmama qabto ee dhulka ku tagtay dad ku soo qabsato gacmama qabto ay ku fuliso muxuu ahaay wixii ay gaartay waxa adeegaas u hayahay waa booliiska oo inuu dadka hor keeno ninkii sharciga ku qaldamana maxkamadda iyo sharciga oo hor keena laga rabo kii ay xukunteen inuu fuliyo laga rabo kii hor istaagana sharciga ha geeyo ciidamada qalabka sidaahi waa hay-ad dowladeed oo dalkan ka tirsan qawaaniin xukunto ayay leeyihiin bilaa qaanuun ma aha iska socdo daysan oo sharci qabanaya aanu jirin ma aha annaga yaanan ka gaabinin booliiska hadday tahay maxkamadaha iyo xeer ilaalinta ciidanka hadday tahay askariga qaldamaahi waa in la geeyaa maxkamadda oo ciidamada qalabka sida uu ka tirsan yahay ma ka weyna gobollada kuwa waaweyn oo saraakiila oo meelo fogfog dembi ku galay ayaa maxkamaddu inta tagtay meesha kusoo xukuntaa ama qaarkood inta u yeertay xamar soo gala tiray soo galaan ayaa inta ma diidi karaan laakiin markuu arko booliiska hadduu shush iska yiraahdo ka tegayaan hadda waa iska taqaana waa bini aadanana waa ku dhiiranaynaa inaan xuduudaha ka gudubno taas waxaan rabaa taas inaan idhaahdo arrinta kale aad iyo aad ayaan wasiirka iyo guddoomiyaha maxkamadda sare ugu raacsanahay cadaalad dalkaani siduu u helaahay dagaalay nooga baahan tahay dagaal la'aan ma soconayso inta sharciga ogol ee raalliga ah oo dadka Soomaaliyeed oo dhan intiisa xoog gale intiisa caqli gale intiisa awood la ah iyo in yaroo nagu dhex jirto oo diidan waan nahay intaasi marka inay waa afartii wiilo hadda aan aragnay awoodooda shabaabka eedo 15 sano haysto kale daalum diidan sharaacada iyo qawaaniinta in lagu dhaqmo diidan ee meel taagan haddana inaan ka caajisno ka gaabino waxaan uga gaabinaynaa waa la isdilayaa reer hebeliyay ku eedin hebelyaanu ku eedin inta yaana ka dhicin ma aha haddaad eed ka cararayso oo adoo sax ah nin khaldan yow ku eedin ba haddii aad muxuu ahay uu shaki kaaga jiro xilka ma hayn kartid niyaa raalli ahaw iska dhig meel ka tag xilka aad qaaday ee kutubka jaamaca aad gacanta u saartay aad u dhaaratay inaad u eedowdo oo lagu eedeeyo qof khaldan midka fiican waa kugu farxaya kan saxa ah ee fiican ee toosan waa kugu farxaya waa ku duceynaya waa ku bogaadinaya waan ku hambalyeynaya kan qalloocan waa kan ku eedeynaya kii qalloocna eediisi markaad ka baqdo kii fiicnaayaad eed ka gashay ogow meel cidlaa ma marin meel dhexe oo la maraahi ma taalo ama u heelinay ama khaladkaad ku dhacay haddaadan rabin xataa aad ujeedadaadu inaad khalad u heeliso laakiin haddaad saxda inaad u heeliso aad ka gaabiso khaladkaad u heelisay waaye macnaheeda waxaan rabnaa dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan ha ku dhiiradaan qaladka inay yiraan waa khalad ciday doonto ha ahaato inay yiraahdaan sax ma aha waxaan waa laga roon yahay sidaan si ka fiicanaa jirto inay yiraahdaan oy dood ka keenaan waa u madax bannaan yihiin dooddu mar walba waa hadal inta la wada hadlayana wax walba waa fiican yihiin horumarka oo maxaan ku raahdaa xeer ilaaliyaha iyo guddoomiyaha maxkamadda sare ay noo sheegeen ee maxkamadaha waa sida la sheegay kaysasku waa badan doonaan dacwaduhu waa badan doonaan mustaqbalka soo socoto maxaan ku raahdaa adeega garsoorka inuu faafo oo dhul badan oo muddo dheer aanu ka jirin oo gaaraa la rabaa hadba siduu u gaaro ayaana muxuu ahay u gaarsiinaynaa laakiin inaan gaarsiinana nalaga rabaa hadba intii aan kari karno iyo sida aan u kari karno meel walba haddaanan maxkamadda gaarsiin karin maxkamadaha meeshaan gaarsiin karno inaan gaarsiino sida aan ku gaarsiin karno iyo dadka aan markaa heli karno haddaan dadka dad ugu fiicnaa meel walba aan u heli karin dad un aan dhihi karno kuwaan wax ka roon oo meesha jooga ma leh inaan intaan u dhiibno wacyigoodana aan hagaajino garsoorku waa madax bannaan yahay golaha adeega garsoorka ama golaha sare ee muxuu ahay garsoorka waxa loo sameynayana waxay tahay madax bannaanadiisa in la ilaaliyo oo aan la faragelinin oo xagga dhaqaalaha iyo budgetka iyo meelaha iyo aan laga faragelinin oo xagga magacaabista iyo maxaan ku raahdaa dadka dalacsiintooda iyo aan lagu faragelinin oo xagga xilsiinta iyo xilka qaadista dadka aanan lagu faragelin si siyaasadda
looga fogeeyo aanay u dhexgelin waaye waxa loo samaynayo golaha sare muxuu ahaay adeega garsoorka ama golaha sare garsoorka waxaa muhiima marka golahaas inaan ku qanacsannahay inaan horta marka horeba faraq gacmo daahir ah wax daahiriye inaan ku kalsoonnahay markaan golahaas ku kalsoonnahay ayaan waxa ka soo baxo dhanna ku kalsoonaanaynaa marka waxaan ka shaqaynaynaa waxay tahay gole dadka Soomaaliyeed iyo duruufahooda maanta jiraay ay ku kalsoonaa karaan inaan keeno waxaa soo haray mashruuca federaaleynta dalka xasan sheekhna ma keenin maalin hadda iska dhaafay markii hore u imaanayeen oo aan noqonaya madaxweynihii ugu horeeyay ee ku meel gaarka markii laga baxay madaxweyne dalka ka noqday nidaamka garsoorka waa yiilay dastuurka ku meel gaarka ee maanta waa dhameystirayna aan leenahay waa yiilay asigayna ku qoran tahay dalku inuu dal federaal yahay rabid iyo rabitaan la'aan ma aha ninkii mas'uul dawladeed noqdahay waa inuu dastuurkaas u hoggaansamaa oo fuliyaa haddii wax ay su'aala ka jiraan ama wax ka qaldin dadka Soomaaliyeed loo bandhigaa waxaan laakiin wixii loo bandhigi maayn federaaleynta waanu istaagnay markii hore waxaan dhisnay nidaamkii federaalka ah ee dalka sanadkaas ilaahay intaasuu nagu guuleeyey maantana ilaa hadda wuu jiraa nidaamkii awoodsiinta iyo xaqiijinta iyo federaaleynta hoos u dadejinta waaye waxa naga dhiman dalkan laba waxyaabood inaan la isku qaldinaan rabaa dalka in la federaaleeyo waa mid dalka in la isku haayo oo hal dal uu noqdaana waa mid kale dalka in la federaaleeyo macnaheeda ma aha dalku inuu kala tago oo qofba meeshay rabtay iska aadi karta ma aha maya jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya jamhuuriyad la yiraahdo oo hal ka mid ah 200 dawladood ee adduunyada ka jira ka mid ahana hal dawladana hal dalana muwaadinka Soomaaliyeed geeskaas ha ku noolaado ama geeskaa kala dalka ha uga noolaado isku xuquuq waaye mid muwaadinka darajada koobaad iyo muwaadinka darajada labaad ma qabno weligeena soo ma qabin haddana ma qabeeno sidaas daraadeed wax kasta oo muwaadinka Soomaaliyeed ee Raas Gambooni jooga iyo kan Raas Caseer jooga iyo kan Laawi Cadda jooga wada taabanayo dawladda dhexe mas'uulka ah dawlad goboleed mas'uulka ma aha wixii taabanayo deegaankaas u gaar ah ee deegaankaas horumarkiisa wanaagiisa amnigiisa hoose amuurihiisa hoose taabanayo dhanna waxaa ka mas'uul ah dawlad goboleedka ka mas'uul ah wixii labadaas ka soo hara ee meel dhexe ah ee wada taabanayo haddii dhinacan loo fasirin muwaadiniinta dhan taabanayo haddii dhinacan kale loo fasirin muwaadiniin deegaan taabanayo waa laga yaabaa wada tashi waa laga wada tashanayaa go'aana laga wada gaarayaa wadaagaa la yiraahdaa nidaamka federaalka ee aan rabnaahay inuu sidaa u qeexnaado waayo ma doonayno dalka Soomaaliya gudihiisa laba muwaadin oo kala xuquuq ah oo kala maxaan ku iraahdaa heybad ah oo kala ixtiraam ah inay ku noolaadaan ma rabno dadka qaarkiis ayagoon ogeyn waxa ay ka shaqaynayaan inay sidaas tahay muwaadiniinta la kala fadilo deegaanada la kala fadilo dadka oo la kala muxuu hayo isku dadka oo la kala celiyo inay isku soo noqdaan aan la ogolaanin ay dadka qaarkiis waxay u arkeen inay tahay nidaam hoose oo u gaar ah dadka maya deegaan kasto Soomaaliyeed maslaxadiisa waxay ku jirtaa Soomaaliya inay isku furan tahay hal dal tahay xuquuq siman leeyihiin deegaankaas haduu ka soo tago deegaankaas tago uu degi karo ku noolaa karo maxaan ku raadaya ku dhaqmi karo xagga kale haduu mid kale u guuraay ay sidoo kale ay tahay laakiin jasiirada kala xirxiran oo midba midka kale difaac uga jiro dalkan 1991 bilowgeedii ee dagaal sokeeye ka bilowday waa la kala miirmay ummadda ayadoo isku dhex jirta oo Soomaali mid kasta meel kasta degan yahay oo deegaan kasta la wada degan yahay oo aan ninkan muxuu ahaay muxuu halkan ka soo doona aan la islahayn ayaa balaayadaasi dhacday waa la kala miirmay dawladda Soomaaliya ama jamhuuriyadda saddexaad ee Soomaaliya mas'uuliyadda saaran waxay tahay dadka inay isku soo celiso horta dadka Soomaaliyeed
inay isku soo noqdaan, inay isku soo noqdaan oo dad walaalo ah isdhex degan oo Soomaali ah oo muwaadiniin ah oo dalkan jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya la yiraahdo dhexdeeda xuquuq siman kule inay noqdaan oo ninba meel degi karo. qabaa'ilaan u kala miiranay waan ognahay, waan garanaynaa. qabiil oo deegaankiisa ku filan yahay ma jiro. qabiil kasta waxaa anfacaya Soomaalinimo. Soomaalinimo wax ku helaya. Soomaalinimo muxuu heybad iyo sharaf iyo karaamo ku yeelan kara. maxay ahayday xadiidkii ahlu Makka shu'uuntooda ayagaa yaqaano Soomaaliya deegaan kasta shu'uuntiisa hoose asaa yaqaano. madax bannaan shu'uuntiisaas hoose ku xallistana waa leeyahay, waana la siiyey oo dastuurkaa siinaya. laakiin shu'uuntii dadka ka dhaxaysa in inta la jiido kuwa degaameed laga dhigo yaynaan isku dayin. meesha aan rabno inaan ka waantoogno cadaaladuna ay ka toosayso waa meesha. war cadaaladdu nimaa guri iga dhacay iyo nimaa beese iga dhacay keliya ma aha. garsoorku waa meeshiisa oo waa hay-addii qaybo ka mid a cadaaladda fulinaysa. cadaaladda oo dhan garsoorka kuma soo aruurtee meelo kale cadaalad looga baahan yahaa badan oo garsoorka xayndaabkiisa xataa ka baxsan. cadaaladdu waxa materiaalka ah ee la kala boobo ee la kala xoogo bes kuma eka. cadaaladdu siyaasaday leedahay, dhaqaalay leedahay, arrimo bulshoay leedahay. meel walbay cadaaladda ay gashaa, ay u baahan tahayna in laga toosiyo laga saxo. marka kuwaasi weli aaliyaadkii aan ku saxaynay qaarkood waa naga maqan yihiin. garsoorkaan haysanaa maanta oo wixii uu noo sixi karay inuu maanta horta asiga horta bal uu noo saxo. kuwa kale bal oo qaarkood aan la arki karin oo la taabo karin ha noo dambeeyaane midaan hadda garsoorka ah oo la taabo karo la arki karo kaysaska intooda badan bal aan kalsoodinayna siino, aan ogolaano in dib u habeyn dhab ah lagu sameeyo muxuu ahaay garsoorka. waxaan rabnaa dowladda federaalka Soomaaliya aniga madaxweyne aan ka ah waxay u hoggaansan tahay dastuurka hadda jira intii suurtagala. waxyaabaha dastuurka in dastuurka ilaan aayaad oo munazal oo ilaahay soo dejiye maahe. shalaba annagaa waa heshiis bulsho waxaa la yidhi. shalaba annagaa sidaan ku heshiinay. haddii maanta dhowr iyo 10 sano markuu jiro kabacdi meelo galdaloole ay ka soo baxeen waa saxeynaa. maantaan iswarsanaynaa qadiyaddan see ka yeelnaa, saanaan ka yeelaynaa, sidii aan isdhahnaanaan yeelaynaa Soomaaliya haddaan nahay. laakiin caqligayga iyo rabitaankayga iyo rabitaanka qof kale iyo rabitaanka koox kale dalkaani meel uguma tegaayo, ugumana soconaayo. dowlad goboleedyada dalka jiroo dhan annaga waa dowlad goboleedyadeennii, waa soo dhowaynaynaa, waa la shaqaynaa, taladay leeyihiin, kama jiidanayno. gooni midaan u faquuqayna iyo midaan jeebka soo gashanaynaa ma jirto. waxaan rabnaa inay talada ay nala gaaraan. markay nala gaaraanne meesha kale ay leedahay talada haddana inaan sii geyno, oo meesha kale ay leedahay aan sii geyno ilaa ay soo aftaranto la yidhahdo alla ilaahay waa arrinkan waa arrin laga tashaday oo la waxay. waxa oo golaha aan hadda samaynay dhexdiisa looga shaqeeyana waa heshiisyada siyaasadeed iyo heshiisyada bulsho iyo wax lamida inaan soo xayndaabka inaan soo samayno frame. waxay ku dhex jiray oo dhan dadka iska lahay inay u tagaan markaa. hadday dhaqaalo tahay, hadday arrimo bulsho tahay, hadday ciddii farsamo iyo khubaro ahayd. annagu khubaro ma ahayn. ciddii arrimahaas khubarada ku ahayd inay inta u tagaan ay ka soo tala bixiyaan, ay yidhaahdaan sidaanaa loo kala leeyahay, sidaanaa loo nambarinayaa, sidaanaa loo waxaynayaa. kabacdina hay-adaha sharci dejinta iyo hay-adaha kaloo qusayso oo heer federaal iyo heer dowlad goboleedba leh inay tagaan. arrimaha dowlad dhisidda waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed inaan u sheego waa ka daahfur oo binaankana waa furannahay. albaab noo xiran iyo qadiyad gaara ma jirto. Soomaaliyada maanta joogta maxaa ku san ayaan ka hadlaynaa. Soomaaliyada 2050 iyo 2060 jiri doonto ma ka hadlayno maxaa ku san. midda maanta joogta 2023 2025 2026 2030
middan soo 10 sano soo socoto kale maxaa ku san 10 sano ka bacdi constitution dib ha loo eego waxyaabaha qaarkood shuruucda dib ha loo shuruucda kale oo dhan joogto waayba dib u eegistooda oo mar walba socon kartaa laakiin constitution kale in la yiraahdo 10kii sanaba mar dib u eegis lagu sameeyna oo guddi yar inta loo saaro oo la leeyahay bal qodobada qaarkood dib ha loo soo eego marka inaan soconaan rabnaa sharci dastuurkeena iyo shuruucdeena sida aan hadba annaga u horo dawladnimadeena u kobcayso ay ula kobcayaan maanta ma sameyn karno wax kasta oo wax ugu fiicnay oo aan jecelnahay waxaan ugu dabaqanta mahmahdii ahayd maxaa suuraabaa ka roon wax badana qurxon dal barwaaqaysan wax walba leh maxaan ku iraahday inaan ahaano waa sida san laakiin maanta maxaa suurooba nimankan dabarka nagu xiray aan dabarka iska goyno si aan u soconno hore ugu sii dhaqaaqno si aan hore ugu sii dhaqaaqno u soconno bal horta dabarka aan iska furno khawaarijtu waa dabar Soomaaliya ee ummadda Soomaaliyeed ku xiran waaye meel kastoo ay joogto kan America jooga iyo kan Yurub jooga kama xor aha laana inta asalkii ah inta haday dabran tahay kan America joogana waa dabran yahay iyo kan Sweden jooga iyo kan Ingiriiska jooga iyo kan Kenya jooga iyo mid meel kasta jooga waa dabran yahay halkan waaye Soomaali meesha laga haysto ilaahay idankiis xaajadu meel fiican waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed inuu sheego cadawgu waa noolahay uu leeyahay laakiin annaga jawaabta saxda ah oo siinay annaan siinayna waa maxay ma noolid qaraxan xagga bag ka siiyay iyo jidkan xagga miina geliyay iyo tuulo hebelan xalay ku soo dheelmaday iyo macnaheeda inay nool yihiin maaha waan dhawaan waa sheegay dambiga isku sii badinayaan nacaybka isku sii badinayaan ciqaabta Allah isku sii badinayaan laakiin wax ay soo noqosho ah ay leeyihiin malaha laana shacabkii Soomaaliyeed ayaa diiday badeecadoodii shacabkay ka dhex gadmi weyday waa malay biyihii ka gureen ma noolaana kalluun ama malay haddii meel oo biyo ku jiraan oo ku dhex mulculeeyahay oo biyihii ay ka guraan ma sii noolaan karaan shabaab biyihii waa ka gureen biyuhu shacabka Soomaaliyeed oo ahay waana ka guray ma noolaan karaan mana noola dadkuna waxaan rabaa inay saas u fahmaan kuwa weli meelaha ku gagabanayo oo cabsanayo oo telefoon meelaha qaarkood u dadirayo oo qalbiga weli waxaan leenahay qalbigiina xoojiya nimankaasi waa tageen dadkaaga dhinac ka soo raacay ummadaada soo dhaxgal wadada toosan iyo wanaaga iyo sharafta iyo karaamada iyo haybada iyo cibaadada iyo suubanaanta iyo ku toosnaanta dariiqa rabbi waaye waxa aan rabno nagula soo toosadi alliira insha Allah intaas kadib mar kale waxaan rabaa inaan bogaadiyo una hambaliyeeyo muxuu ahaay bahda garsoorka federaaleynta garsoorkuna waa socotaa muwaadiniinta Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan xuquuqdooda in la wada ilaaliyaan rabnaa colaad iyo cunfi colaad iyo cadow aan shabaab ahayn oo dawladda Soomaaliya ay leedahay ma jirto inta kale oo dhan lama dirirsanin nin siyaasi oo meel taagan waa qayli karaa qola xagga waa ka qayli kartaa laakiin qolo walba waxaan rabnaa inaan garabka u raaricino oo dhaano walaalayaal maxaa dhiilaydan maxaa idin dhibaya inaan dhaanaa rabnaa oo waxa dhibaya intaan kala garanno kala fadhiisan hadday run yihiin dhibka aan ka dhaafno haddii ayan ahayn ismoodsiiyeen inaan u sheegno dhaano war dhib ma ahana waad ismoodsiiseen hagaaga dadka Soomaaliyeed baaq guud oo u diraya waxa waaye nabad walaalayaal waxaan nabad iyo heshiis aan ahayn ma anfacayaan Soomaali heshiis aan ku baaqnay waa naga dhab baydhabo gogol nabadeeda ka furan laascaano gogol nabadeedaan ku baaqnay welina waa ku sii baaqaynaa in ay nabadi ay ku soo waxaysanto meel kastoo kale ay colaadi ka jirto oo na sidoo kale ayaan ugu baaqaynaa raalli kama ahin kuma faraxsanin dhiig Soomaaliyeed oo daadanayo meel kasta uu yahayba ummadda Soomaaliyeed
dhaqankii suubanaayoon lahaa jirnay iyo odayaasheenna iyo dhammaan war nabaddu qofna wax kama bi'iso qofna ma disho qofna ma dhaqaala tirto qofna ma karaama tirto laakiin colaadda waa ku dilay waa ku karaama tiray nimaadan baryi lahayn inaad baryay midaadan magan u noqon lahayn inaad magan u noqonay midaadan kaalmo weydiisan lahayn inaad weydiisanay midaadan isku ra'yi ahayn oo xumaan iyo qaabdarro iyo walax alle iyo islaamku aanu raalli ka ahayn weligiis ku dhex jirayaad maciin bidee aad kaalmo u doonanay ha aadin ka adkayso ka adkayso oo u adkayso waxba kaa dhibi maysee walaalka kaa soo horjeedo walaalow iyo inaad kari karta raalli ahow waa kaa khaldanaa anaa kaa gardaraa raalli ahow waa qodob kaama gardarni walaalow laakiin haddaa idhibsatay raalli ahow ayadan waxba kaa dhibi mayso waxayna kuusoo kordhiso kumana liidanaanna kuma geynaysee karaamo iyo sharaf iyo waxay kuu keenaysaa wanaag dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxaan ugu baaqayaa nabadda inay qaataan nabaddana ay ka shaqeeyaan waxaa kale oon rabaa mas-uuliyiinta soomaaliyeed ee siyaasadda heer federaal iyo heer dowlad goboleedba joogaba ayagana waxaan ugu baaqayaa noloshu wax kasta siyaasad ma aha siyaasaddu waa muhiim waa talada meesha ay ka go'do laakiin wax badan oon siyaasad ahaynaa jire yaanan siyaasadaynin meesha ay leedahay siyaasadda aan geyno aanan ku hayno meeshaas yaanan intaan soo daadejinno geedda guryaha iyo qoysaska iyo xafiisyada hoose iyo meelaha iyo qabaa'ilada iyo degaanada iyo yaanan dhex keenin wayna dhibay waynana fidnaynay meesha ay leedahay aan ku hayno oo soomaaliyay qabiilkuna meesha uu leeyahay aan ku hayno reer qurac iyo reer qansax oo dalka geeskaas iyo geeskaas ka degan waa midda aan sheegayno shu-uuntooda gaarka ahay u madax bannaan yihiin talada guud ee dalka soomaaliya iyo dadka soomaaliyeed ka dhexayso dhanne wakiilay u soo dirsadeene wakiiladooda ha ku kalsoonaadeen oo waxa ay rabaanna ha soo marsiisteen weliba ha usoo dhiibteen meesha lagu gaaraya talada federaalkan ka hadlayaaye oo dadka soomaaliyeed oo dhan wada gaarayso hadday tahay siyaasad hadday tahay amni hadday tahay dhaqaale hadday tahay arrimo bulsho hadday tahay war wakiilaad soo dirsatay oo aad tiri ii tag meesha lagu haayo talada soomaalida ka dhexayso ii tag aad tiri waa joogaa waa dad maxaan ku rahday indheergarad ah wax yaqaano wax fahamsan bas maxay u baahan tahay adigaan ku kalsooneen oo dhinac cararayo ninkii aad soo wakiilatay ayaad haddana feer cararaysaa aad gol socotaa waxyaabuhu meelaha inoogu hagaagi lahay inay ka mid tahay war waa 4 sanaad soo dirsatay hadduu xumaado xataa oo 4tii sano waxaad rabta uu fuli waayo 4 sano dambe mid kale soo dirso iska dhig kii kugu xumaaday laakiin yaan la gol ordino aanay wixii isaga keen dhex yaacin wixii yaanay isaga keen dhex yaacin oo dadkii mas-uuliyadda loo dhiibay iyo mas-uuliyaddoodii yaanan ku macno tirin aan ku ixtiraamo waxba ma ahid adiga waxba ma ahid kale lay leedahay le maxaa markaas labadaas marka la isku daro maxaa ka imaanayo waxba ma ahin kulligeen meeshaas yaanan imaanin waa waxa muxuu ahay afka qalaad lagu dhahay zero sum game cayaar kusoo gabagabowda dhammaanteed markay socoto zero yaanan ka shaqaynin walaalayaal nabad aan ku baaqaynaa heshiis aan ku baaqaynaa soomaaliya heshiisa dunidana heshiis la ah aad iyo aad aa u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh